kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobadaad wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya ayaa qaadaysa tallaabo aad u culus oo ku doonayso inay ku tagto dekedaha Saylaca iyo deegaanada waqooyiga Soomaaliya iyadoo ciidamada dalka Itoobiya ay buux dhaafiyeen xuduudda gobolka Awdal gobolka Oromiya waxaa ka tagan siyaasad khalkhal weyn ku riday bulshada deegaankaasi iyadoo jamhadda OLA iyo maamulka Shimlis Adisa ay isku dhaxmilmeen dowladuna ay gebi ahaanba kala dirtay golaha dhexe deegaankaasi dagaalada culus ayaa wali ka soconaya deegaanka Axmaarada iyadoo xogaga Fana ay godoomiyeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmaarada meesha militariga dalka Itoobiya ugu darro weyn kala kulmayo dagaalka culus ee ka soconaya furimaha hore deegaankaasi Tigray ayaa gabi ahaanba diiday ka qaybgalka shirarka ay qabanaysa dowladda federaalka Itoobiya iyadoo xogaga Tigray ay wadaan abaabul aad u ballaaran oo ku doonayaan inay ciidamadooda dib uga hirgeliyaan deegaanadaasi sidoo kale maamulka Somaliland ayaa khalkhal weyn ku abuuray hawada dalka Soomaaliya iyadoo dowladda Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin culculus oo arintaasi looga hortagayo Muuse Biixi ayaa doonaya gabi ahaanba Soomaaliya inuu go'doon geliyo iyadoo duulimaadka caalamiga ee dalka Soomaaliya dulmara uu khalkhal weyn maalmihii ugu dambeeyay soo wajahay dowladda federaalka ayaa guulo waaweyn ka gaadhay dhanka diblomaasiyadda iyadoo Itoobiya sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin aad u culus qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay gooni oo soo dhawow warkeena ayaan u guda galaynaa xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay marba marka ka dambaysa xaaladdu cirka ayay isku sii shareeraysaa dowladda Itoobiya waxay qaadaysaa tallaabooyin aad u culculus oo ku doonayso in ay ku qabsato dekedda Saylac ama deegaanada waqooyiga Soomaaliya abaabul aad u ballaaran ayaa guud ahaan Itoobiya laga dareemayaa deegaanada gobolka Awdal ciidamo aad u tiro badan ayaa xuduudkaasi jooga oo kala duwan sida liyu booliska Soomaalida iyo militariga dalka Itoobiya oo aad u tiro badan oo fadhiisimo waaweyn ku leh deegaanada xuduudkaasi dhaca sidoo kale dowladda Itoobiya waxay bilowday dhismaha laami weyn oo isku xidhaya tog wajaale ilaa magaalada Jigjiga oo laga dhigayo laamiyaasha waaweyn ee casriga ah ee saddex geesoodka Itoobiya waxaad moodaa inay hadda doonayso in ay badda cas ilaa caasimadaha sida Addis Ababa iyo Jigjiga inay noqdaan dhul Itoobiya oo waddan waaweyn horweyn laga dhisayo xaaladda Itoobiya aad bay u adag tahay laakiin korneylku tallaabooyinku qaadayo waa mid aan la dhayalsan karin soo dhawow gooni oo seed u aragtaa in ay Itoobiya ay sheegtay inay ciidamadoodu ay buux dhaafiyeen xuduudka gobolka Awdal amar sugayaal ay yihiin saacad kastana ay maartay tallaabo qaadi karaan meesha dowladda Soomaaliya aan meel lagu sheegi karin soo dhawow gooniyow sida waa mahadsan tahay horta dowladda Soomaaliya meel lagu sheegi karo lama dhihi karo dowladdu way joogtaa waana dowladda hadda qaabka diblomaasiyadeed kaga reesay Itoobiya welina way soo taagan tahay laakiin Abiy Ahmed ciidamo hadoo diyaariyay oo leeyahay waxaan gelinaynaa gudaha Somaliland waxa ay soo kordhin karaan ma garan karno maadaama xeebaha Soomaaliya tigideeda ay aad u adag tahay asgar kamid ah dowladda Itoobiya gudaha Soomaaliya aysan gali karin ardaasna noqon karto dhibaato iyo dagaal iyo burbur soo gaar Itoobiya sababtoo ah ciidamo waxa jira Soomaaliyeed aad u far badan oo lagu diyaariyay lughay Saylac kuwaas oo markaas doonay inay ka hortagaan duulaanka Itoobiya iyo Muuse Biixi maamulkiisa taasoo ka dhigi karto in dagaal aad weyn dhulkaas uu ka dhaco waxaan hadda si kala fogaanayo Itoobiya iyo qolooyinkaas dheeraad Somaliland maadaama wixii heshiiska ah uu dhaqan galaya wararku waxay sheegayaan in tagitaanka Somaliland gudaheeda maadaama ay adkaatay inay rabaan in Muuse Biixi maamulkiisa ay yimaadaan Jigjiga isla markaana halkaasi wafdiga soo gaar doono heshiis ay ku saxiixan doonaan kadibna kulan labaad oo dhici doono oo ka dhici doono gudaha Addis Ababa heshiiskan lagu dhameystiri doono laakiin arrimahaas oo dhan waxay hortaagan caalamka oo fahmay in Itoobiya dulmi ay ku jirto gardaran ay ku jirto ciidamadan iyo waxaan faraha badan ay diyaarinaysana loo maleemaa inay meel gaari doonaan maadaama masaaridu iyo nimanka la yiraahdo Turkidu ay leeyihiin ma suuragali karto in badda Saylac ay dhulka Soomaaliya la qaato Ismaaciil Cumar Geelo ciidamo u soo diray asagana dhanka ay lug haye waxay keenaysaa cabsi iyo qalqal weyn ay Itoobiya ku beertay Soomaalida naftigeedu hadii xabad ay bilaabato aan la kala joogsan doonin oo meel kasta la isaga imaan doono Ras Kambon ilaa Ras Caseer Soomaaliya isaga imaan doonto dagaalku uu qaraaran Itoobiya markaas halkaas ka dhici doono ma sahlano in Itoobiyaanka gudaha Soomaaliya soo galaan shido waad mahadsantahay gooniyow hadda ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo lug haye iyo Saylac ama gobolka Awdal xuduudiisa ilaalinaya
oo maanta la isku halayn karo oo la dhihi karo Ethiopia ciidamada hadday galaan way ka hortagayaan ilaa waxaan haynaa oo kaliya inay dhalinyarada gobolkaasi ay sabaabulayaan awood maanta ciidamada Ethiopia ka hortagaysa oo halkaasi ku sugan oo si rasmi ah loo ogyahay ma jirto Somaliland ciidamada lahayd ee dhulkaasi ka talinaysay waxay u gacan hadinaysaa sidii Ethiopia dhulkaasi soo galeen waxaa la dhihi karaa weeleen diblomaasiyiintu haddii si dhab ah hadda loo eego Ethiopia ayaa weli xeerinaysa in ayna ku degdegin barnaamijkan oo ciidamadeedu saacad kasta way gali karaan dowladda Soomaaliya waxa kale ay hayso waxa la leeyahay in ay Turki iyo masaaridu ay u ballan qaadeen inay difaacayaan laakiin dowladda Soomaaliya ma aragno kumanaan ciidan ah oo ma artay leeyahay waxay u diyaarsan yihiin in dhulka difaacaan oo kayd ah oo goobo ku urursan oo hubkooda taangiga iyo cirba diyaarsan yihiin uma jeedno dowladdu af oo kali ah ayaan ka maqalaa madaxweynuhu hanjabaya iyo golihiisa wasiirada oo dhahaya Ethiopia haday isku daydo talaabo ayaan ka qaadayna laakiin dadku waxay leeyihiin in dowlado kale la isku haleeyo oo Masar iyo Turkiga ku difaacada waxa ka wanaagsan adigoo one day ku diiwaan geliya 100,000 oo dhalinyaro oo Soomaali ah oo diyaarsan oo kumanaan mushaar ah intii loo diyaariyo loo ballan qaado reerahooda la damaanad qaado dhaqaalahan aadka u badan ee siyaasiyiinta Soomaalidu ay cunayaan ay lunsanayaan in dhalinyaro Soomaali oo dalka difaacda lagu diiwaan geliyo oo la diyaariyo la soo bandhigo muuqaalo cadawga argagax gelinaya yaa ka muhiimsan dowladda Soomaaliya cunaqabateyn hub Masar oo ogsoonahay December 13 sanadkii tagay ayaa laga qaaday dowladdu deyn baa u furan inay hub casri ah oo ciriyo dhulaba ay deyn ku soo qaadato waxa u furan inay dhaqaale qaadato waxa u furan in ay wax soo gadato dowladdu waxa la leeyahay waxaan afka ahayn male Ethiopia wali wax xeerinayso sidoo horta in Ethiopia wali wax xeerinayso sida uu meelka arintaasi in Ethiopia day wax xeerinayso madaxweynaha Soomaaliya ku sugan Addis Ababa in may hor istaagteen marna may dhahdeen xoog anaga ku wadanayno iyo waxyaabo kale oo fara badan ka hortag ay ku sameeyeen inuu midowga Afrika oo galo iyo waxyaabihii ay sameeyeen oo qallaaso aha iyo dhibaatadii ay markaas ku diideen shirka urgoleedka igad iyo waxyaabahaas oo dhan markaa fiirisid Ethiopia wax ay xeerinayso malahan laakiin meel ay ciirsatay laadahay ama meel ay madaxa la gashay laadahay sababtoo ah in ma jirto wax horumar ah oo ay ka sameeyeen intii dadaal ay sameeyeen caalamka intay kala tashadeen codsiyada ay gudbisadeen intiiba wax jawaab rasmi oo la siiyay ma jiro marka in qaramada midowga haday ahlad midowga Afrika iyo European Union ka dhamaantood waxay u sheegeen inay qaldan yihiin dhulka iyo badda ay ku xadgudbeen dhul Soomaaliyeed dadka ay la xaajoonayaan inay yihiin Soomaaliya dad kamid ah laakiin aysan ahayn wadan madax banaan arintaasna waxay keenaysaa dhibaato wararka qaar waxay sheegayaan in waqti Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay jirtay heshiis dhexmaray Abiy Ahmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo dhigayay in 4 dekedood oo Soomaaliya kamid ah inay maal gashan doonaan hadii markaasi la helo wax dekadaas dhiso in dowladda Ethiopia ay wax kala soo degi karto sida Farmaajo afkiisa uga sheegaba arintaas marka Abiy Ahmed wuxuu ka xanaaqay inuu Farmaajo oo heshiis kula jiro meesha uu ka baxay kadibna wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliland ku xarqaladeeyo koonfurta Soomaaliya nin Xasan Maxamuud la yiraahdo hadda heshiiska Abiy Ahmed kula jirno Abiy si kala fogaanay markuu soo galay kadibna wuxuu bilaabay in Soomaaliland uu adeegsado burburinta Soomaaliya ama in markaas heshiis beenaad ah uu la galo si markaas isugu dhacyo halkaas ku yimaado ama carqaladeyn uu kaga sameeyo Soomaaliya dhanka ay badahaas ay lacshido waad maadsantahay gooniyow dhanka iyo Ethiopia yaraadina gobolka Oromia waxa ka taagan siyaasad aad u cakiran oo ah maamulka iyo jabhadda in la kala saar laayay dowladda Dr. Abiy Ahmed talaabooyin waxay qaaday aad u culus golaha wasiirada ayaa isku shaandhayn ugu sameeyay xildhibaanadana saraakiil heer federaal ka shaqeeya oo gobolka Oromia xildhibaano ka ah wasiirana ka ah federaalka ay xasaanada ka qaadeen gobolkaasi waxa la leeyahay wuxuu qarka u saaran yahay inuu gacanta u galo jamhadda oo wale ee dagaalada xooggan kula jirta dowladda Ethiopia waxa la leeyahay madaxweynaha gobolkaasi gabi ahaanba wuxuu ku fashilmay maamulkii deegaankaasi xaaladdu aad bay u adag tahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu leeyahay haddaan gabi ahaanba maamulka Oromia la kala dirin maamul cusub la dhisin xaaladdu ma sii jirayso Oromiyana si fudud ay jamhadda ugu gacan galaysaa jamhadda ayaana maamulka ilaa madaxweynaha gacanta ku dhigaysay dhawaan waxaa jiray wasiirka nabadda ee dalka Ethiopia oo xildhibaan Oromiya ahaa inay magaalada Addis Ababa lagu xiray oo xidhay dowladda federaalka Ethiopia ay xidhay ninkaas oo sheegay heshiiska oo walaal Tanzania lagu la galay inay dowladda Abiy Ahmed ay ka socon weyn Abiy Ahmedna waa nin nabadeed ahayn oo nin colaadeed yahay Ethiopia wax ragaadiyay inuu isaga ninkaas oo dastuurka Ethiopia uu qorayo nin xasaarad haya oo xildhibaan inaan la xidhi karin ayaa la xiray dowladda Abiy waxay dhashay oo xildhibaana ma xasaanadii maalnimadii shalay ayaa laga qaaday baarlamaanka ayaa ka qaaday golihii wasiirada ayaa la kala diray kuwa muhiim ah ayaa shaqooyinkii laga caydhiyay oo loo ballan qaaday inay xabsi galayaan dadku waxay leeyihiin jamhadduba shacabka Oromia ama dowladda Oromia la sheegayo markii laga reebo ninka Shimlis Addis la dhaho inteeda kale waa Oromia oo shacabka Oromada ayaa aqoonyahankoodii
siyaasigooda dhammaantood waxay u gacan hadinayaan xoogagan aadka u hubaysan oo laba mowqif wata oo aada u adag inkastoo mowqifyada OLA ay ku dhawaaqayso ayna ahayn kuwa Ethiopia midnimada ka turjumaya oo ayna yihiin kuwa dhan ka raran waxay leeyihiin OLA annagu Oromiya nala dhahaa nimanka Tigrayga ee xag jirka ee 27 sano dalka Ethiopia haystay annaga ku kicina dhalinyarada Oromiya ee Qayrol jiray ee Jawhar Muhammad Bagala Garaba Hamza Borana ay hogaaminayeen ee horjoogayaasha u ahaa annaga ayaa ku kicinay oo gabi ahaanba Tigray meesha ka saaray haddaan Tigray meesha ka saaray oon awood wadanka ku qabsanay abiyo waxmaad hambaynin Ethiopia waxmaad u hambaynina walaalo ku dhawaaq bay leeyihiin inuu calanka federaalku iyo calanka Oromiya inay magaalada Addis Ababa magac laga bedelo oo loo bixiyo Finfinne oo luqadda Oromiya in maartay dalku uu federaalism ku sii shaqeeyo marka ugu dambeysana Oromiya go'aan lagu dhawaaqo inay dalka ka go'ayso Abiy Ahmed intaaba uu ka soo horjeesaday inuu luqadii nationalka Oromiya laga dhigo in calanka Oromiya laga dhigo in caasimadii Oromiya laga dhigo inta uu ka diiday oo leh oo wixii Addis Ababa hansa luqaduna waa Axmaarigi ee nimanka Ethiopia la noolaano laakiin Oromadan dagaalamaysa iyo shacabka Oromada fikrad waxay aaminsan war Tigrayba markay wadanka qabsadeen wadankooda oo kaliya ay dhisayeen Ethiopian kala weyleynayeen wixii Tigray u dan ah bayna ka shaqeynayeen ayagoo aad u tira yar oo lagu sheegay inay 6 milyan ayna dhannayn Tigraygu ayaa hadana xildhibaanada markii la qaybsanayo heer federaal ayagu ay lambarka saddexaad isgeliyeen oo ka dhigeen qoomiyada ugu awood badan inay ugu tirada badan meesha Tigraygu ayna soo galaynin baa leeyahay qoomiyadii lixaad ama toddobaad hadii population ahaan la dhaho dalka Ethiopia xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay Abiy Ahmedna gobolka Oromiya iyo culays weyn kaga yimid sidoo kale goonigow dhanka ay xamaarada hadaan u janjeersano gobolka xamaarada dagaal culus ayaa ka socday la wada ogsoon yahay dagaalkaasi waxa uu dhaxeeyay militariga dalka Ethiopia iyo xogaga Fana ee isbedel doonka ama xogaga xag jirka ee Axmaarizinka aadka u aaminsan Axmaarnimaduna ay aadka ugu fogtaan xogagan qudhoodu taageero ballaaran ay bulshadooda ka haystaan waaga dagaalkoodii la liicin layahay dul aad u ballaaran ayay gacanta ku hayaan gobolka xamaarada markii laga yimaado magaalada Gondar iyo Bahardar inta kale waxa leeyahay gacanta ay ku hayaan inkastoo Lalibela airportkana ay militariga Ethiopia ay gacanta ku hayaan si xogaha rasmi ka imanayaan xaaladda gobolkaasna aad iyo aad buu adag yahay waa gobol weyn oo la dhayalsan karin dawladda Abiy waxa ku keenay baa leeyahay inay hada barnaamijkii Soomaaliland lala galay la fuliyo dagaalkan ayaa mar walba xarkaha soo goosanaya oo ay soo dhawaanayaan caasimadan ay ku soo dhawaanayaan dawladuna la leeyahay war hadaan hada dagaal kale isku furo dhanka Soomaaliya ama kuwani hal mar ina dabagadiyaan ama gabi ahaanba xukunka ay la wareegaan laakiin si kastoo ay hata korneelka way ka go'an tahay inuu tago badda cas dagaal la ula galo cid kasta oo kaga hortimaada rabitaankiisa dhanka badda si kastoo ay hata Ethiopia way gubanaysaa dagaaladuna aad bay u qaraariyeen Tigray ayaa amar diido weyn kala hor yimid dawladda federaalka Ethiopia way ku sheegeen inay Tigray ay ka weyn ama ay ka miisaan culus yihiin inay korneelka shir uu hogaaminayo ama xisbi asagu gacan ku samaystay inay la kulmaan TPLF waxay taagan tahay xisbiga waa xisbi ballaaran TPLF la dhaho gobolada dalka Ethiopia dhan ka disgaraysan yahay waa xisbi dastuuriya shirweyne qaran markaan qabanayno Ethiopia dhan isku wacayna adina Abiy inta maamusho Ethiopia isku wac labadaasna aad iyo aad bay u kala fogeen ciidanka Tigray waayadii ugu dambeeyay waxay wadeen diyaar garow aad u ballaaran Getachew Reda maalmo ka hor wuxuu sheegay inay diyaariyeen 270,000 oo ciidan gaar ah oo Tigray ay leeyihiin Tigrayna aan lagu soo degdegi karin maalinka dagaalka nagu soo qaadeen biriya maanta ciidanka nagu tirado halkiin bay dhantahay inkastoo dhaqaale la'aan aad u baahan gaajiye macluul ay gobolkaasi ka taagan tahay haddana nimanka Tigraygu waa niman xag jir ah kama tanaasulayaan intuu qof ka nool yahay inay xuquuqdooda ay nin kale u daba fadhiistaan waana sida ay dulmaysiintu sheegayaan waa nimanka laga baqayo inay Abiy Ahmed mar kale kursi ka tuuraan Ethiopiana ay dagaal geliyaan ama ay gabi ahaanba madax banaani ay ku dhawaaqaan ay dalka Ethiopia kaga go'ayaan korneelku awood uma leeyahay inuu TPLF la dagaalamo hadda sababtoo ah TPLF hadda waxa la dhaqaale badan ku bixiyaa si ayna dagaal u soo qaadin isagoo dhaa dibidhis ayaan ku sameynaynaa dhulkii dagaalka ku burburay sida buundooyinkii goobihii caafimaadka waxbarashadii iyo guud ahaanba dadkii sida gaarka loo beegsaday ganacsiyadooda ayaan dibidhis u sameynaynaa Tigray ayaa taasi lagu sameeyaa dhaqaale badan dawladda Ethiopia halkaas ku bixinaysa laakiin Tigray way ka go'an tahay inay mar xuquuqdoodii iyo maartay ka dhex muuqdaan fagaarayaasha siyaasadda dalka Ethiopia inay dib u soo noqoto waana si weynaa Tigray iyo Abiy Ahmed meesha ay ku dambeeyaan
loolanka weyn ee siyaasadeed ee kasoo socda dalka Ethiopia. Gooni dib baan kugu soo noqonayaa hawada Soomaaliya khalkhal weyn baa maalmihii ugu dambeeyay soo galay ilaa laga soo bilaabo 11 February bishan aynu ku jiro xaaladdu ma sahlaneyn. Somaliland diyaarado badan ayay la hadashay way xataa ugu baaqdeen in Soomaaliya hawada xiranta ka laabtaan iyadoo dowladda federaalkana ay noo sheegayso in ayadu dalka ka taliso xaaladda lama saadaali karo muuse dagaal yar kuma jiro xagee wax maraya qayla dhaamay dowladda soo saartay la yirmaanta shidow horta arrintan waa la isku haystay muddooyinka lasoo dhaafay Somaliland oo tay cabasho gudbisay sheegtay in diyaarada laga celiyay in dhowr mar ay dowladda Soomaaliya ku xadgudubtay laakiin hadda waxaa soo kordhay in dowladda federaalka Soomaaliya cabasho ay soo gaartay gaar ahaan waddanka Israa'iil diyaarad hawada Soomaaliya maraysay in la qalqal geliyo ay sheegtay kadibna dowladda ayay ka codsatay inay hubiyaan in qalqalgelintaasi meesha ay ka socoto baaritaan ay sameeyeen waxay sheegeen in dowladda Ethiopia ay qalab u keentay nimanka la yiraahdo reer Somaliland isla markaana musabixi maamulkiisa ay isticmaalayaan hawada inay qalqalgeliyaan qalqalgelintaasna ayagu markaasi iskood ay u sameynayaan si markaasi dhibaato ay kaga dhacdo ama ayaga dowladda Soomaaliya la wada hadashiyo arrintan waxay noqonaysaa in la sii kala fogaanayo Somaliland iyo Soomaaliya wada hadal loo qabto si markaasi Abiy Ahmed wuxuu sheegay in isku soo dhawaan doonaan ama hawada markaasi la wada qaybsan doono ama la wada qolo walba ay geeskeeda ka maamuli doonto waa sida fikirka Abiy Ahmed uu ku shubay nimanka reer Somaliland qalabkaasna asaga u keenay sida warka nagu soo gaarayo marka si kala fogaanshaha ayay sii kordhinaysaa moogiye dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in go'aan rasmi ka saari doonto 100% ayada inay safgareyn doonto hawada Soomaaliya in maalmaha soo socdana war lagu farxay in la gaarsiin doono caalamka maadaama Somaliland isku dayayso inay qalqal geliso dhamaan wixii lagu heshiiyay waad maasantahay goonow warka gabagabadiisaan marayna waxa ugu dambeeyay Soomaaliya siyaasadda cirka isku shareertay Maxamed Abdullaahi Farmaajo uu hadlay Sheekh Shariif uu hadlay mucaaradka cirka ay isku shareereen waxa la leeyahay Xasan Maxamed Gebi Axmed siyaasaddu waa ku fashilmay meesha dalka laga difaaci lahaa dadka laga midayn lahaa siyaasad dastuur oo la garanayn bal cid ay dan u tahay ayuu madaxweynuhu ku mashquulsan yahay leeyahay maxaa arrintaas ka jira siyaasaddu waa iska caadi shalay Sheekh Shariif Xasan Sheekh ayaa qeylinay farmaajo ku qeylinay maantana farmaajo Shariif ayaa qeylinay Xasan Sheekh ayaa ku qeylinay marka siyaasaddu waa wareegto maalinba nin ayaa lagu dhagan yahay nin kasto kursiga fuulo Cabdullaahi Swadkar wuxuu dhahay markii murtad aan dhihi jiray markuu kursiga haystay qof walba dhihi jiray yiri marka waxaan malan jiray murtadkiina aniga ahay markaan ka degana Shariif murtad lagu bilaabay yiri marka murtadku waa kursigee aniga horta ma ahayn yiri sasan ku ogaaday marka waxaad dareemi kartaa in qofka qaldan mar walba leeyahay qaldan waa qof kursi ku fadhiyo shal waxa la farmaajo wax weerar hawada ka soo diyaaradda ku weeraray Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh dhibaato kale oo geystay farmaajo waxa weeraray Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabshakuur waxyaabo badan lagu eedeynay maantana waxa leeyahay ragga shalay wax weeraray maanta ayagana aad soo jeedinay waxay leeyihiin dowladii kale talisnimay sameysay dastuurkii bedelaysa arrimahaas oo dhan macquul ma ahayn marka waxa u malaysaa ninka siyaasiga mar walba wuxuu cabiraa fikirkiisa wuxuuna ku cabiraa in dadka bulshada Soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in xukuumadda markaas joogto ay qaldan tahay marka madaxweynaha Soomaaliya dadaal weyn ayuu ku jiraa laakiin waxa hadda la isku haysto madaxweynaha lagu dhagan waa in dastuurka la bedelo dastuurka hadii la bedelana waxa arki doontaa in markaas Xasan Maxamuud dhankiisa dan ugu jirto qolooyinkan kalena aysan dan ugu jirin sababta marka Xasan Maxamuud loogu dhagan waa arrintaasi siyaasadan in mar walba la isku dhagdhago waa wax iska caadi oo wax dhibaato ma lahan shidow waad mahadsantahay gooni daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin barnaamijka Shiisheer Gareeya meel fogna gaarsiiya inta aan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono sida ay nabadgeliyo